waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso ku saabsan kabihii Aldaanburi ee laga yaabka lahaa. intaana gudu galin haddii aad ku cusub tahay channelka Ogaalsan fadlan subscribe saar oo la soco muuqaalada xiga. sheekadani waxay ka dhacday dalka Iiraan oo xilliga xukumayay boqor hase yeeshee la yiraahdo Aldaanburi oo muddo 70 sano ah watay kabo oo marka ay ka sii dhamaadaanba jaan cusub sii saari jiray. waxay kabihii ay noqdeen kuwa aad u culus oo masaabiir fara badan ka taagan tahay. dadweynihii ayaa ka soo cawday kadib markii dad fara badan ay waxyeelo ka soo gaartay, waxaana aakhirka Aldaanburi lagu amray inuu fogeeyo kabaha. waxa uu ku duugay wado jidcada ah oo gawaaridu marto. waxaa soo maray gaari bas ah, waxaana gaarigii ka dilaacay lugtii. markii meesha la qoday waaba kabihii Aldaanburi, waxaana la geeyay xaruntii booliska ahayd. mar kale ayaa la amray inuu fogeeyo, waxa uuna ku duugay duleedka magaalada. waxaa dhacday in magaaladii biyo la'aan soo food saarto. waxaa la amray injineeradii biyaha in ay cilad bixiyaan waxa sababay biyo la'aanta. waxay u baxeen duleedka iyaga oo fiirfiirinaya tubooyinka biyaha. ayaa waxaa mid ka mid ah tubooyinkii loogu tagay kabihii Aldaanburi. waa la soo qaaday, waxaa la keenay xaruntii booliska. waxaa mar kale la amray Aldaanburi kabaha inuu fogeeyo. waxa uu soo qaaday kabihii. gurigiisa waxaa ku agyeelay webi. habeenbarkii buu soo kacay, markaasuu is yiri haddii aad kabaha dariishadan ka tuurto oo webiga ku riddo yaaba ku arki doona. hase yeeshee niman kalumaysato ah oo shabaag u tiilay ayaa shabaqii ka dareemay culays. waxay u qaateen inuu ugu soo dhacay kalluun. waxay soo jiidaanba. markii ay bannaanka keeneen oo ay sidaa u fiiriyeen waaba kabihii Aldaanburi. waxay geeyeen saldhigii boolis ee u dhowaa. waxaa loo yeeray Aldaanburi. waxaa la siiyey fursad kale oo uu kabaha ku fogeeyo. isagoo caga jiidaya kabahana habaaraya ayaa waxa uu go'aansaday markan inuu kabaha ku duugo meel xeeb ah. markii uu xeebtii ka soo dhaqaaqay ayaa maalin maalmaha ka mid ah baa boqorkii u soo dalxiis tagay. isagoo kubad ku cayaaraya ayaa waxaa muday musbaar. halkii buu ku cabaaday. markii goobtii la qoday waxaa loogu tagay kabihii Aldaanburi. Aldaanburi gurigiisa isagoo iska jiifa reerkiisana la jooga ayaa ciidamo u yimaadeen. kolkaa buu naxay. waxaa loo geeyey boqorkii oo lugta ka dhaawacnaa. inta madaxa foorariya isagoo oo gariiraya ayaa boqorkii ku yidhi sow kuwan maahan kabahaadii. markaasuu yidhi haa. inta aayar u gurguurtay ayuu boqorkii jilbihiisa qabsaday. waxaana loo dalbay kaba cusub. waxaana lagu yidhi mar dambe kabahan kuma dhibi doonaan, aniga ayaa kaala wareegay. isagoo faraxsan ayuu qasrigii ka soo dhaqaaqay Aldaanburi. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. haddaba haddii aad ku cusub tahay channelka Ogaalsan, subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena cusub.